بسم الله الرحمن الرحيم. qoraalka afka qoraalka afka waa guushii ugu weyneyd ee taariikhda ay u soo hoyatay qaran weynaha Soomaaliyeed adduunka. Af lagu hadlo oo aan ka lahayn buu ahaan jiray af qani ah sida la qabo. Laba qani ka hor baa dadkiisu wadi ahaayeen leh boqolkiiba 80 gabaya iyo heesaa. Gola ka fuul baa hal abuurku ah. Waqti badan kama qaadan jirin. Sidaa awgeed oo Soomaaliya loogu naanaysi jiray waddanka gabayaaga. Tusaale, doob baa ku jareexayay gashaanti hees ciyaar oo yidhi naashi jirusa xataa mooye shirqa ka cunya mooye etimihii baa jab kugu dhigay. Isla daqiiqadii ku xigtay baa gabadhii u celisay war firay oo garfeed mariyay subkay oo saliid mariyay tircayo tantan u qaaday ay sida dhaaladkaaga dambe iga dhalan xumaadeen. Waqtigani kama fogeyn 1950aadkii. Qoraalka kadib baa wixii afka qaaliga ah ka cayntay lagu boobo ururin iyo kaydin siiba ilaa waqti ku soo simay 1950. Markaas oo runtii weli afku noolaa oo fircoonaa. Gabayaa waaweyn sida sayidkii iyo halgamayaashii daraawiish iyo rag tiro badan oo aan halkan lagu soo koobi karin baa wixii laga hayay ee la xafidsanaa la qoray oo la soo saaray diiwaano dhaxal gala. Waxa iyana guul labaad ahayd meelmarinta faafintiisa iyo adeegsiga. Markiiba afka maamulka iyo miidiyaha ayuu noqday. Muddo yar gudaheedna afka tacliinta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa lagu agaasimay. Run marka la sheego manaahijtii dugsiyadaasi aad bay u tayo sarreeyeen. Intaas laguma joogin ee tallaabo saddexaad baa la qaaday oo lala baahsan oo la magac baxay bar ama baro oo dalka oo dhan ah miyi iyo magaalo ayaa la qaaday oo tuulooyin daah oo ceelasha xooluhu ka cabaan la gaarsiiyey iyo raacatada oday habar wiil gabadh intaba. Dadkii howlahan waaweyn ku kacay ammaan iyo xusbi ay naga mudan yihiin waa kaas maanta afku gaadhay meel kasta oo Soomaali degan tahay Djibouti ku dhaho ee la intifaacsanayo. Nuxurka dadaalka Aadsom aan soo laabto qoraalka afka hooyo ma dhamaysbaa mise waa qabyo. Waa su'aal mug weyn oo u baahan in aan jawaabteeda lagu degdegin ee hoos wax loo eego oo laga baaraan dego. Aqoon la'aan afka ah awgeed waxaa qoraalkiisu ku koobnaa qorid xarfo higaad iyo isku dardarin. Sidan baa afku ku hirgalay oo maadaama aanay jirin xeerar qoraal oo afka lagu dabaalayo ama lagu midaynayo qof kasta u qoray siduu u maqlay isagoo aan naxwe ama heshiis kale oo guud cuskanaynin. Arrinkan kor ku xusan baa dhalay laba shay. Kow, faa'iido muddo dhow ah. Qoraalka afka waa fududaaday sidaas awgeed oo cid kasta u awooday inay wax qorto. Laba, dhib mustaqbaleed. Qoraalkiisi baa faraaroobay oo sidani aakhirkii sii fogeysay midayn la'aanta qoraalkiisa. Qoraalka afku weli waa qabyo sida aniga iyo dad badan oo kala qabaan. Haddaba caana daatay dabeedba la qabay ma la joogaa waqtigii dib loogu noqon lahaa oo la qabyo tiri lahaa afka. Doodo ka hor dhegaysta iyo akhrista halkan ka soo dhiibta aragtidiina ku aadan mawduucan qarada weyn. Ka qaybgalkiinu waa daruuri. mahadsanidin. Mahadsan Axmed Shiraac.